السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتigu waa waxa ugu qaalisan ee uu qofka bini aadamka ay haysto. Waqtigu waa mid kamid ah nimcooyinka qaaliga ah ee Ilaahay mooye aan cid kala bixin. Waqtigu waa hanti hadii uu marku dhaafo aan dib loo heli karin. Qiimaha waqtigu leeyahay waxay noo cadeynaya in Allah uu ku dhaartay meelo badan oo kitaabkiisa Quraanka kamid ah sida habeenka, aroortii, barqada iyo casarka. Shayga uu Allah subhanahu wa ta'ala ku dhaartay runtii waa mid qiimo badan. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri ka faa'iideyso 5 arrimood hortood dhalinyarnimadaada inta aanad gaboobin, caafimaadkaaga inta aanad xanuunsan, dhaqaalahaaga inta aanad xoolo beelin, firaaqadaada inta aanad mashquulin iyo noloshaada inta aanad geeriyoon. sidoo kale waxa uu yiri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laba nimco ayay dadka badankiisu moogan yihiin, caafimaadka iyo firaaqada. diinteena soo bani aad ayay uga hadashay qiimaha iyo dhowrista waqtiga. waxa jira xikmad uu ka tagay caalimkii weynaa Ibn Qayyim Ilaahay ha naxariistay wuxuu yiri waqtiga oo ka luma dhimashada ayuu ka xun yahay sababtoo ah waqtiga oo ka luma waxa uu ka fogeeyaa Ilaahay iyo aakhiro. dhimashadu waxa ay ka fogeysaa adduunka iyo ehelka. ugu dambayn waa inaan ka faa'iideysanaa waqtiga. ilaahayna haynaga dhigo kuwii ka faa'iideysta waqtiga.